ciyaartoyda xulka qaranka dalkeena Soomaaliya oo ay ka qayb qaadanaya tartanka kubadda cagta adduunka ay dhawaan ka daafurmay dalkaasi Tunisia ee World Money Football ka haya maalinta Brita waxay ka hortagi doonaan xulka qaranka dalkaasi Brazil. ciyaarahani ayaa waxay ka mid yihiin ciyaaro ay si weyn markaa ugu soo qayb galeen dalal aad u fara badan. xulka qaranka kubadda cagta dalkeena Soomaaliya ayaa waxay ka mid noqdeen shanta dal ee ka socota qaaradda Afrika ee ka qayb qaadanaya tartanka World Money Football ee ka daafurmay dalkaasi Tunisia. dalalka ka socda qaaradda Afrika waxaa ka mid ah Tunisia oo ah martigeliyaasha tartanka World Money Football, Libya, Senegal, Africa Coast iyo Soomaaliya. haddaba Soomaaliya ayaa waxay ku jirtaa gruubka ugu adag ee gruubka dhimashada maadaama Soomaaliya ay ka hortagi doonto dalalka Brazil, Ruushka iyo sidoo kale Bosnia. waxay Soomaaliya ciyaarta ugu horeysay la ciyaari doontaa maalinta Brita xulka qaranka dalkaasi Brazil oo taariikhda ku beegan tahay 8 bisha tobnaad ee sanadkeenu ku guda jirno 2017. isla waxay ciyaari doontaa 9 bisha aynu ku guda jirno xulka qaranka Soomaaliya oo ka hortagi doona wajiga labaad ee tartankaasi xulka qaranka dalkaasi Ruushka. waxaana wajiga saddexaad is arki doonaan 11 bisha aynu ku guda jirno Soomaaliya ay wajihi doontaa xulka qaranka dalkaasi Bosnia. haddaba xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Xaaji Aadan Cabdulle ayaa faahfaahin dheer ka bixiyay rajada ay Soomaaliya xilligan ay ka leedahay in ay tartankani World Money Football ay ka soo gaaraan. maanta aynu joogno magaalada Nepal ee dalka Tunisia waxaan rabaa inaan halkaan maaragtay ka salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda saxaafadda iyo hadii bahda ciyaaraha jecel ee Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan ka sheego in maalinta bisha 8 ay tahay taariikhda bisha Oktoobar in ciyaaraha Soomaaliya qaybta kubadda ciyaar doonto isla markaasna kooxda ala ciyaar doonto tahay kooxda Brazil oo iyaguna maaragtay markii ugu halkan tartan oo ay ku sugayn 24 dowladood oo Soomaaliya ka mid tahay Brazil ay ka mid tahay. sida aan la socdo xalay waxaa ka dhacay falsi adduun ayaa ka dhacay magaalada Nepal garoonka la sameeyay in uu qabto ciyaaraha adduunka ee ku yaala xeebta magaalada Nepal taasoo ay ka soo qaybgaleen 24 waddan ee duunaha maaragtay waddanka Tunisia oo hogaaminaya madaxweynahooda. runtii xafladaasi waxay ahayd xaflad aad u qiimo badan oo kulli taariikh leh. waxaan rajaynaynaa insha Allah taala Soomaaliya inay guul ka gaarto maadaama aragnay markii aan soo bixinay oo halkan imaanay sida filinay maanta halkay taagan tahay waa kala duwantahay fikirkeena. marka waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in Soomaaliya ay taageerto